odayaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay isku shaaneyntii uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyagoo sidoo kale u hambaliyay wasiirada cusub ku xigeenada wasiiru dowlayaasha agaasimayaasha guud iyo dhammaan xubnaha ka soo jeeda gobolka Sool iyagoo si gaar ah ugu hambaliyay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ay sheegeen in bulshada ku dhaqan deegaanada Sool Sanaag ay markii u horeysay heleen saamiga ay ku lahaayeen xukuumadda Soomaaliland xafladan munaasabadan ballaaran ee sida heerka sare loo soo agaasimay waxaan u qabanay taageerada magacaabidda wasiirka arrimaha gudaha Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir iyo xubnihii kale ee lala magacaabay ee beesha dhulbahante waxaanuna u cadeynaynaa halkan inaanu taageersanahay beeshiisana uu ka haysto taageero ballaaran isaga iyo inta kale ee lala magacaabayba aanuna la shaqayn doono madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo iyo xukuumaddiisana waxaan u sheegaynaa xilliga loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha haddaanu nahay beesha dhulbahante waxaan u malaynayaa de waa xilli gabagaba lagu jiro oo kala guura waxaanu leenahay madaxweynaha aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxayna u baahan tahay intaas aad ugala sii dhawaato ma dhadhowaanu leenahay madaxweyne ma dhadhowaa waxbaa dhiban weli meesha way isugu imanaynaa dadka wax u qaybiyo intaa ugala sii dhawow intaasaanu leenahay madaxweynaha xubnaha uu magacaabay ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha hadduu baanu meesha qoobka soo gelinay madaxweyne hadduu baanu qoobka soo gelinay dhulbaanta meesha waa imanayaa qolada beesha dhex waxaad leedahay iska diyaariyo boosaska 25 sanad ku shaqaysanaysiin waxaan u hambalyeeynaa ku soo dhaweynaynaa dawladda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo sida uu wuxuu magacaabay uu qorsheeyay baan u hambalyeeynaa nooc kastaba ha ahaato ummadda halka isugu timeeyay maanta halka xafladda ku qabanaysana maaha reer waa reer guud bay ka yihiin oo waa reer dhulbahanta ah rag iyo dumarba waa leeyihiin dawladda uu hogaamiyo madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo dawladda uu magacaabay ee cusub iyo isku shaandhayska uu sameeyay aad iyo aad baan u hambalyeeynaa waxaanu leenahay madaxweyne talaabadan aad qaaday waa talaabo wanaagsan si aad iyo aad fiican baan ku hambalyeeynaa haddaanu nahay beesha Maxamuud Garaad iyo dhulbahantaba aad iyo aad baan ku hambalyeeynaa waana ka filayn in ba loo magacaabay dadka loo magacaabay nooc kasta in aad baan u soo dhaweynaa dadweynuhu aad buu ugu faraxsan yahay madaxweynahana waxaa leenahay waa intaasoo si la sheego kula sii dhawaata dhulbahanta dayime hadduu maqnaa jagadii ugu horeysay waa jagada professorka loo dhiibay kuwa kale xubnaha waaweyn ilaa ciidan iyo wasiirro iyo agaasimayaal iyo xubnaha waaweynba iyo wasiir ku xigeenada wax badan ba inta xagga u leeyahay ka rabnaa waxaan u leenahay qolyihii hore ee dalka joogay la isugu yimi jagada iyada banay taas waa inta gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn anagoo aan ku faraxsanahay oo aan ku qanacsanahay daan gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn aan ka soo jeedno waxaan hambalyeeynaa oo hambaliye bogaadin soo jeedinaynaa madaxweynaha Axmed Maxamuud Siinaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa qaaliga Amina Maxamuud Jirde iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo marwadiisa waxaan ugu hambalyeeynaa cadaaladda iyo sinaanta ee habeen iyo maalin u taagnaa xaquuqda dalkeena hoos u eego oo ugu hambalyeynayaan aan ugu wada hambalyeynana rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel ciyaal iyo caruur aan ugu hambalyeynayno isku shaandhaynta la isku shaandheeyay shirarkii iyo xilalkii iyo maalinkan maanta madaxtooyadii aanu maanta salka saaray haddaanu nahay gobolka Sool waxaan ugu hambalyeynaa madaxweynaha ummadda gobolka ummadda ee Soomaaliland magacaabista xubnahan isugu jira wasiirada wasiir dowlayaasha iyo agaasimayaasha guud ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo ifbaxday wada hadallo u dhaxeeya maamulka Khaatumo iyo Soomaaliland balse xilalkan cusub ayaa noqonaya saamiga ugu badnaa ee loo magacaabo xubno ka soo jeeda gobolka Sool Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood